tan iyo markii la aasaasay xeryaha qaxootiga Dadaab sanadkii 1991 waxay hooy u noqotay in ku siman nus milyan qaxooti ah kuwaasoo ka cararay colaadaha iyo rabshadaha ka jira dalalkooda, gaar ahaan Geeska Afrika. Xeryahaas oo ka kooban 4 xero Dhagaxley, Ifo, Ifo2 iyo Hagardheer ah ayaa muddo ku dhawaad 3 sano ah la tacaalayay culeysyo isbiirsaday oo dhinaca nolosha ahi. Qaxootiga ku nool Dadaab waxay gebi ahaanba ku tiirsan yihiin gargaarka hay'adaha samafalka, kuwaasoo bixiya adeegyo aasaasi ah sida biyo, raashin iyo gunno lacageed oo la yiraahdo Bamba Chakula, lacag dhan 500 oo shilinka Kenya ah, qiyaastiina u dhiganta $5 oo lagu taageero qoysaska qaxootiga maalinkiiba. Bishii Janaayo 2025 xaaladda xeryaha ayaa sii xumaatay kadib markii hay'adaha gargaarka ay bilaabeen dhimista adeegyada muhiimka ah. Dhinaca kale, raashinkii la siin jiray dadka qaxootiga ah ayaa isagana la dhimay, iyadoona hadda keliya 40% laga helayo wixii hore loo siin jiray. Arrintaas ayaana sii xoojisay culeyska nololeed ee saaran dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi. Gunnada lacageed ee Bamba Chakula loo yaqaan, oo ahayd badbaado kale oo muhiim u ah qoysaska, ayaa la bixin jiray muddo 2 bilood ah. Hay'adda WFP ayaa sheegtay in hakadkaasi uu la xiriiray dhaqaale xumo baahsan oo haysta hay'adda, taasoo ka dhalatay kaalmadii USAID ee Mareykanka oo istaagtay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale xafiiska la wareegay horaantii sanadkan, isla markaana go'aankaasi ku dhawaaqay.